Dowladda Mareykanka ayaa doonaysa nin ka tirsan Al-Shabaab oo lagu magacaabo Jihad Sarfaan Mustafa ayaa la duldhigay lacag gaaraysa 5 milyan oo doolarka Mareykanka waxaana la ogeyn Soomaaliya halka uu kugu nool yahay. Dowladda Mareykanka ayaa intaasi ku dartay in qofkii soo sheega lacagtaasi lagu abaalmarin doono isla markaasina la geyn doono dal nabdoon oo uu ku noolaado. Xalay saqdi dhexe ayaa diyaarado waxay warqado ku duldaadiyeen degmada Dinsor, deegaanka Yaaq Baraawe iyo deegaano badan oo hoos yimaada degmada Dinsor ee gobolka Bay. Maamulka degmada oo aan la xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyay in deegaano badan lagu duldaadiyay isla markaasina ay ku soo kalaheen magaalada oo warqado daadsan. Warqadaha ayaa sidoo kale waxaa ku qornaa ninka la doonayo midabka jirkiisa, cabirka dhirirkiisa iyo da'diisa iyo xilliga uu soo guuray Soomaaliya, waxaana lagu yiri sidan: Mustafa waa muwaadin Mareykan ah, waxa uu u soo guuray Soomaaliya oo xubin ka noqday ururka Al-Shabaabna waxay qaraxyo iyo weeraro badan ay ka fuliyeen Geeska Afrika, halkaas oo ay ku dileen boqolaal shacab ah. Barnaamijka abaalmarinta cadaaladda waxay bixinaysaa abaalmarin gaaraysa ilaa 5 milyan oo doolar siinaysa qofka keena wax macluumaad ah oo horseeda in la soo qabto ama la soo xiro. Haddii aad hayso nala soo wadaag, ayay ku qorneed warqadaasi xalay lagu soo daadiyay degmada Dinsor iyo deegaanada hoos yimaada ee gobolka Bay. Xuseen Cali Geesi, 5TV, Buur Xakaba.